الرحمن الرحيم waxaan bilaabaneynaa cashirkeeni 18aad waxaan hore usoo qaadanay 17 cashir ay hore usoo qaadanay wuxuuna ku saabsanaa basic computer skills qeybaha hoose ee computerka ayuu ku saabsanaa waa qeybaha hoose ee foundationka oo maaragtay computerka bilowga ah ayuu ku saabsanaa oo A+ka ah marka qof walbo afka Soomaaliga ku hadla cashirkan wuu u furan yahay free ayuu u yahay wax wuu ka baran karaa wuu ka faa'iideysan karaa waana qeybaha ugu hooseyso hadduu raba ahaado qof aan computer waxba ka aqoon hadduu raba ahaado uu maaragtay hadduu cashiradan uu qaato waa maaragtay wuu ka faa'iideysan karaa waana wuu baran karaa waxaan loogu talagalay dadka aan maaragtay computer waxba ka aqoonin oo bilowga ah ayaaba koorskan loogu talagalay marka waxaa marka aan diyaariyey buug ayaan diyaariyey buuggaas qofkii rabo $6 iyo bar waaye muqdisho haddaad joogtid meesha rabtid ayaa lagugu keenayaa waxaana maaragtay igala soo xiriiri kartaa boggeena aan ku leenahay tiktoka iyo youtube-ka xirfad.com computers and technology ayaa ii heli kartaan boggigaa booqanaysaa lambarkeygii iyo maaragtay meesha ayaa ka heli kartaa marka waxaan soo qaadanay cashirka bilowga waxaan soo qaadanay horta computerka laba ayaan u qaybinay hardware and software ayaan u qaybinay hardwareka waxaan dhahnay anything oo aad taaban karto wax walbo aad taaban karto oo computer ku saabsan oo aad taaban karto waa hardware computerka naftigiisa waa la taaban karaa waa hardware keyboardka waa hardware mouseka waa hardware ramka waa hardware cpu-ga waa hardware system unitka waa hardware wax walbo aad taaban kartid physicaliyan asaas u taaban kartid waxa waaye waa hardware softwarekana waa waxa gudaha ku jira computerka gudihiisa ku jira oo la isticmaalayo ayaa waxaa la yirahdaa software ayaan soo qaadan oo waxaan dhahnay operating systemka haddii computerka aan lagu shubin computerka kuma shaqeynayo because software ma lahan oo computerka qolof hardware ayuu ku noqonaya oo waxba aan gelin ayuu ku noqonaya markii laakiin lagu shubo operating systemka windowska lagu shubo ama windows 7 ha lagu shubo ama windows 8 ha lagu shubo ama windows 10 ha lagu shubo ama windows 11 ha lagu shubo markaas ayuu computerka ku shaqeynaya marka hardwareki iyo softwareki saas waa marka waxaan maaragtay windows operating systemkina qayb badan ayaan u qaybinay oo waxaan windows 7 windows 8 windows 10 11 oo hadda sii marayaan dhahnay soo marka waxaan kaloo qaadanay useradii aan create gareynay waa maaragtay computerkiisa markii aan operating systemka lagu shubo muxuu ahaa usera ayaan create gareynay useradii afar aan u qaybinay administrative ayaan dhahnay iyo waxaan dhahnay muxuu ahaa standard user guest user iyo waxaan dhahnay child user ayaan dhahnay operating systemkana waa sii qaybinaa additional u qaybinay waxaan dhahnay waxaa maaragtay loo qaybiyey qaar oo home users ah oo guryaha lagu isticmaalo dadka basic ay isticmaalayaan iyo ardayda kaas waxaan dhahnay home iyo waxaan dhahnay starter waa haddii laakiin uu rabo qofka in uu business ama company waaweyn ay isticmaalaan windowska waxay dooranayaan marka additionka oo ah enterprise-ka iyo muxuu ahaa ultimate-ka iyo ayay maaragtay ayay qaadanayaan oo maaragtay macnaha more features ay program professionalka ay qaadanayaan wuxuu leeyahay more features ay u baahan yihiin laakiin dadka qofka basic isticmaalaya internet inuu galo rabo youtube inuu isticmaalo rabo kale ama inuu maaragtay microsoft word wax ku qorto rabo kale homeka ayuu maaragtay iska isticmaali karaa so marka hardwareki iyo softwareki maaragtay waan qaadanay inta badan marka hadda waxaan qaadanaynaa networkii sidee computerkii ay isugu xirmayaan 2 computer 3 computer 4 computer si isugu xirmayaan ayaan qaadanaynaa because mataqaana waxaad gelaysaa fiiri youtube ayaa gelaysaa youtube marka computerkii youtube uu ku jiro serbaha wuxuu yaalaa new york kale yaalaa adina Soomaaliya ayaa joogta si ugu xirmaysaa network ayaa kugu xiraya network haduusan jirin computerkaas kuma xirmi lahayn soma waxaa arkaysaa laba kambe jaamacadoo kale branchigana waxaa username and password aad ku isticmaalaysaa branchiga kale aad tegaysaa isla same user account aa lahayd ayaad ku isticmaalaysaa maxaa kuu saamaxaya network ayaa kuu saamaxaya marka networka wuxuu leeyahay noocyo badan ayuu leeyahay ayaan baranaynaa conceptiga network uu leeyahay ayaan baranaynaa macnaha maadaama basic aan baranayno network muxuu yahay muxuu u kala baxaa ayaan baranaynaa koorsku ku sii xigo ayaan waxaan ku sameynaynaa in aan set up gareyno oo networkii aan sameyno so marka haddii aan u galno cashirkeena maanta waxaan qaadanaynaa network types ayaan qaadanaynaa marka wuxuu ku leeyahay network typeska in this lesson you will identify networking
waxaad qeexaysaa networking muxuu yahay ayaad qeexaysaa. Waxaa kaloo qeexaysaa security fundamentals. Networking markii la sameeyo in la protect gareeyo waa marka networking la ilaaliyo, security loo sameeyo, maaragtay software-rada uu u baahan yahay lagu shubo si maaragtay dadka attackerka ah ee networking aysan u soo gelin. Taas naftigeeda waa fahmaynaa. Marka to start si aan u bilowno, you will identify common network types. Waxaad maaragtay aan qeexaynaa noocyada network uu leeyahay. Marka wuxuu ku leeyahay recognizing in si aan u aqoonsano network models-ka and coverage types-ka. Haddii aan aqoonsano ku leeyahay recognizing network models-ka haddii aan aqoonsano iyo coverage types-ka will help you, wuxuu kaa caawinayaa, wuxuu ku leeyahay will help you determine the approach to identify the scope of network issues. Marka wuxuu kaa caawinayaa markaad fahanto, markaad aqoonsato network-ga oo aad aragto, wuxuu kaa caawinayaa the best approach, qaabka ugu fudud oo maaragtay aan approach gareyn karno to identify inaan caddeeno the scope of network issues. Issue-ga network uu leeyahay ayaan maaragtay waxaan ku baranaynaa si fudud ayaan ku baranaynaa oo maaragtay oo macquul ah ayaan ku baranaynaa. So marka waxaan bilaabaynaa marka network types-ka ayaan bilaabaynaa. Network types waa soo ayaan qeexi doonaa. Hadda marka waxaan baranaynaa what is the network ayaan baranaynaa. Network muxuu yahay ayaan baranaynaa. Wuxuu ku leeyahay a network is a group of connected computers. Wuxuu ku leeyahay network-ga waa group of computers connected. Group of connected computers waa hal computer, laba computer, saddex computer oo la isku xiray ayaa wuxuu noqonayaa network noo noqonaya. Maxaa la isugu xirayaa marka? That communicate si ay communication u sameeyaan. Computerkan si uu la hadlo waxaa u baahan tahay in network la sameeyo oo maaragtay la isku xiro si communication oo u dhasho. Marka wuxuu ku leeyahay maxaan kaloo u sameynaa share resources. Waxaa kaloo la sameeyaa in la share gareeyo resourceska. Resourceskaas maxaa ka mid ah such as wuxuu ku leeyahay files inaan share gareyno. Kambaniyada waxay leeyihiin department file gooni ah iyo foldero gooni ayuu leeyahay. In department walba departmentkii kale in uusan maaragtay failashiisa uusan arkin, laakiin inta isku department ay share gareeyaan failashooda. Waxaa arkaysaa 5 qof 6 qof oo hal file share gareynaya oo maaragtay hal shaqo maaragtay qabanaya. Marka waxaa noo saamaxay ninkan computer ayuu isticmaalaa, ninkaas computer ayuu isticmaalaa, waxayna share gareynayaan hal file ayay share gareynayaan. Maxaa marka u saamaxaya network ayaa u saamaxaya. Maxaa kaloo maaragtay ka mid ah in la share gareeyo, waxaa ka mid ah printerska. Kambaniyada marka waxay isticmaalaan, waxay leeyihiin kambaniyada waaweyn huge waa badan yihiin, kambani waaweyn computer badan ayaa yaal. Marka haddii la dhihi lahaa computer walbo hal printer ha lagu xiro, costiga ayaa qaali noqon lahaa. Marka network muxuu noo saamaxay in la hal printer aan sameyno share ka dhigno oo maaragtay ay share gareeyaan 50 qof oo kale ama 20 qof oo ay share gareeyaan oo kale ayaa maaragtay ayaan sameyn karnaa. Maxaa noo saamaxay network ayaa noo saamaxay internet connection-ka inaan isticmaalno, internet inaan ku xiranno, inaan YouTube isticmaalno, inaan Facebook isticmaalno, TikTok inaan isticmaalno, in any page oo aan u baahanahay, website aan u baahanahay isticmaalno. Maxaa noo saamaxay network ayaa noo saamaxay. Network hadduusan jirin internet maba isticmaali lahayn. Waxaa kaloo jira marka database inaan maaragtay share gareyno, database-yada inaan share gareyno. Database-ka waxaa laga wadaa tusaale ahaan database haddaan idiin sheego oo aan soo qaadano, waxaa ka mid ah isbitaaladoo kale. Waa tegeysaa markaad tagto isbitaalkii reception-ka ayaa tegeysaa, waxaad maaragtay u sheegaysaa inaad u baahan tahay dhakhtar. Dhakhtarka u baahan tahay marka wuxuu ku leeyahay details-kaaga isii ku leeyahay, information-kaaga isii, magacaaga isii, telephone number-kaaga isii, date of birth-ka waqtiga dhalashada isii ayuu ku leeyahay. Haddii address aad leedahay address-kaaga isii ayuu ku leeyahay, meeshaad degan tahay ayuu ku weydiinayaa. Marka muxuu gelinayaa database-ka ayuu gelinayaa, record ayuu sameynayaa. Recordkaas markuu sameeyo computer-ka uu geliyo oo database-ka uu geliyo, recordkaas la sameynayo oo meesha la gelinayo ayaa database ah. Database waaye, database. Datada waa datadii information-kaaga, base-kii meeshii lagu base gareynayo oo la dhigayo waa. So marka database saas ayaa laga wadaa oo markii information qofka uu kaa qaado oo reception-ka joogo wuxuu sameynayaa inuu computer-kii geliyo. Markuu computer-ka geliyo hadhowdi waa baxaysaa dhakhtarka u tegeysaa. Dhakhtarkii wuxuu already haystaa
detailska ayuu haystaa ninkaana u gudbiyey muxuu u gudbiyey qaab network ayuu u gudbiyey network marka in database la share gareeyo maxaa noo saamaxay networking ayaa noo saamaxay in ninka receptionka waxa uu hayay uu arko dhakhtarka oo meel kale joogo maxaa saamaxaya network ayaa saamaxaya marka taas inaan isla fahno waa network ayaa saamaxaya marka network marka wuxuu ku leeyahay whether wire or wireless marka waxaa loo isticmaali karaa network in wire la isugu xiro oo dhowr wire computer walba computer kale wireless lagu xiro si communication u sameeya ama wireless la isticmaalo access point in la isticmaalo oo maaragtay all computers ay ku xirmaan sida hadda guryaha kale haddii aragteen oo kale waxaa box yar waxaa yaalo oo hormuud ay kusoo siinayso kale gurigaa dhiganaysaa wireless ahaan ugu xirmaysaa qof walba mobilkiisa fiilo kuma xirno wuxuuna ku xiran yahay modemka ayuu ku xiran yahay muxuu ku leeyahay ruutaha ayuu ku xiran yahay ruutaha access pointigiisa ayuu ku xirmayaa maxaa saamaxaya network waay network ahaan ayuu ugu xirmayaa qaab wireless ahaan ayuu ugu xirmayaa so marka taas ayuu ka wadaa in wire la isugu xiro ama wireless ahaan la isugu xiro marka wuxuu ku leeyahay most network will include inta badan network waxaa ku jira network media ayaa lagu sameeyaa media ayaa loo sameeyaa oo fiilooyin ayaa la isugu xiraa such as cable in cable la isticmaalo maxaa cable loo isticmaalaa to carry network datada in la carry gareeyo oo la qaado waxay u baahan tahay inay cable marto oo maaragtay fiilo ay dhex marto network adapter hardware in la isticmaalo ayay u baahan tahay marka datadii maxaa lagu sameynayaa to translate network adapterka ayaa wuxuu ku sameynaya translation ayuu ku sameynaya wuu bedelayaa datadii ayuu maaragtay wuxuu u bedelayaa in la fahmo ayuu ka dhigaya translate data between the computers and network computerkii datadii laga soo diray iyo network mediaha ayaa maaragtay isfahmaayo maxaa isfahansiinayo network adapterka ayaa isfahansiinayo waxaa kaloo la isticmaalaa muxuu ku leeyahay waxaa kaloo la isticmaalaa operating systemkiisa network qayb ayuu ka qaataa operating systemkaas windows 10 windows haddii computerka uusan ku jirin ma isticmaali kartid waxaa kaloo marka uu kaa caawinaya in networkgana uu aan isticmaalo operating systemka ayaa laga caawinaya to enable the computer to recognize network in network computerka uu fahmo maxaa noo saamaxaya operating systemka ayaa noo saamaxaya windows 10 ha ahaado windows 11 ha ahaado ayaa noo saamaxaya hadduusan computerka windows uusan ku jirin communication ma dhacayo oo network ma dhacayo waxaa kaloo jira network protocol to control network communication protocolla ayaa jira marka network uu leeyahay oo la isticmaalo si networka loo controlo communication ka dhacayo si loo control waxaa jira protocollo la isticmaalo all these components work together waxaas aan soo sheegno dhan waa xiriir ayaa ka wada dhexeeyo way wada shaqeeyaan marka to enable fully functioning computer network si uu u dhacdo yiri marka inay kulligood way wada shaqeeyaan maxay wada shaqeynayaan si aan u helno oo u dhacdo fully function computer network in network computerka network uu leeyahay ay wada shaqeeyaan ay xiriir wada sameeyaan ayaan maaragtay ayaan ka helaynaa marka wuxuu ku leeyahay any computing device that will communicate with the network wuxuu ku leeyahay marka any computing device any device oo computer ah that will communicate or wada xiriir wada xeeyo with the network will also include network adapter card ayuu leeyahay si marka ay u xiriiraan laba computer saddex computer ay u xiriiraan computer walba wuxuu leeyahay adapter card network interface card ayuu leeyahay oo loo soo gaabiyo NIC ayuu leeyahay waa meesha fiilada ay gasho waay computerka qaybta dambe oo fiilada ay galayso ayaa waxaa la yiraahdaa network interface card ayaa la yiraahdaa computerka gudihiisa motherboardka ayay ku jirtaa ay ku dhagan tahay marka waa computer walbana wuu leeyahay ama wireless ahaan ayuu leeyahay ama wuxuu leeyahay maaragtay fiila ahaan in loo geliyo ayuu leeyahay marka that usually built into the most devices wuxuu ku dhagan yahay lagu dhajiyaa device-ka gudihiisa oo maaragtay system unit-ka gudihiisa ayuu ku jiraa all the device may require adapter that can be insert into the expansion of slot qaarkoodna waxay u baahan yihiin in maaragtay ay la geliyo maaragtay expansion slotka aan soo qaadanay motherboardka haddii casharada dib u noqotiin waxay leeyihiin expansion slot marka kaarka meeshaas ayaa la geli karaa all the devices-kii hore dadka waxay isticmaali jireen in kaar lasoo gado oo la geliyo laakiin kuwa hadda dambe laptopyada iyo waxaas oo dhan waa built into most device hadda way ku dhagan yihiin waa lagu kambaniga ayaaba kusoo dhajiyaba marka
network interface kaarkaas wuxuu kaa saamaxayaa in kombiyuutaradii ay isticmaalaan, waa meesha fiilada ay gelaysa kombiyuutar walbo. taas ayuu rabaa inuu fahansiiyo. marka waxaan baranay marka network typeska ayaan baranay, iyo waxaan baranay network muxuu yahay, in ay tahay a group of connected computers, saddex computer, afar computer inay maaragtay ay connected yihiin, la isku xiro si ay communication u sameeyaan. maxay communication u sameynayaan? inay share gareeyaan resourceska maxaa kamid ah fileska inay share gareeyaan, printerada inay share gareeyaan, internet connection inay youtube ama wax ay ku xirmaan oo kale, ama page ay booqdaan oo kale, databaseka in la isticmaalo oo maaragtay databasedii informationkii uu lahaa qofka markii la geliyo databaseka in qofka kale oo u baahan uu arki karo. taasna maaragtay waxay kamid tahay networking ayay kamid tahay. marka networkgan waxaan dhahnay in la isugu xiro wire iyo wireless aan la isugu xiran way noqon kartaa. hadda guryaha waa aragteen qof walbo wuxuu isticmaalaya laptop, qaar isticmaalaya, qaar waxay mobile la isticmaalaya. saasay tahayna kombiyuutaradaas waxaa ka dhexeeyo communication ayaa ka dhexeeya, qaarkoodna maaragtay fiilooyin ayaa ku xirmaya. marka waxaa kaloo loo baahan yahay uu yiri network media oo fiiladii ah si ay datadii u qaado, iyo waxaa loo baahan yahay network adapterka ayaa loo baahan yahay oo interface kaarka ah si uu maaragtay datadii translation uu u sameeyo, oo datadii markii kombiyuutarka ay kasoo baxdo si kombiyuutarka kale markay gaarto waxaa dhacayo translation ayaa dhacayo. translationkaasna waxaa sameynayo network adapterka ayaa sameynayo. waxaa kaloo jira marka protocolo la isticmaalo oo maaragtay si loo controlo communicationka dhacayo, ayadana waa qayb ayay ka tahay. all this maaragtay components waxaan oo dhacayo dhan waxaa waa work together si maaragtay waxaasoo dhan way wada shaqeeyaan. marka haddii ahaa lahayd maaragtay operating systemkii, fiilooyinkii, kombiyuutaradii la isku xiray, waxaasoo dhan waxaa loo sameynaya waxaa waaye inuu dhaco fully function computer network inuu dhaco ayaa loo sameynaya. in network aan helno maaragtay oo shaqeynaya inaan helno ayaa maaragtay loo sameynaya. marka wuxuu ku leeyahay computer walba any computing device that will communicate network will include, wuxuu leeyahay marka ku jiro network interface. marka wuxuu ka wadaa intaas computer walba wuxuu leeyahay oo jira network interface kaar ayuu leeyahay oo maaragtay loogu talagalo si network loo isticmaalo, internet si loo isticmaalo. waa meesha fiilada ay gelaysa waa meesha fiilada ay gelaysay, wuxuuna ku jiraa oo built-in uu ku yahay computerka gudihiisa ayuu ku jiraa oo built uu ku yahay, ku dhisan yahay macnaha. qaarkoodna wuxuu yiri marka older deviceskii hore waa la geli jiray, inta la soo gato ayaa la geli jiray. marka wuxuu kala duwan yihiin kuwa hadda dambe, kuwa hadda waa lagu soo dejiyey, kuwii horena wuxuu ahaa waa la geli jiray, inta la soo gato ayaa la geli jiray. marka waxaan hadda fahanay network muxuu yahay ayaan fahanay. casharada soo socdana waxaan taabyadii u xirmayaan ayaan baran doonaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo. marka cashirkii oo theoryga intaas ayaan kusoo koobeynaa. waxaan kaloo hadda aan qaadanaynaa wuxuu ahaa in aan fahano inaan maaragtay computerka operating systemka aan isticmaalayno waa noocee. taas ayaan rabnaa inaan ogaano. qofka suu ku ogaanayo editionku isticmaalayo, operating systemku isticmaalayo suu ku ogaa karaa. waxaan ku qaadanaynaa labka ayaan ku qaadanaynaa. waxaa furaysaa internet explorerka ayaa furaysaa. markaa furto waxaad tegaysaa this pc ayaa waxaad ku sameynaysaa right click, property ayaan tegaynaa. this pc right click ku samee, properties ka tag, page ayaa kuu furmaya oo settingska ah. settingskana waa ka tegi kartaa directed oo maaragtay settingska inta tagto system inta tagto kadib meeshaas waa ka geli kartaa. waa kana marka waxaan kow ka bilaabeynaa horta hp laptop ayaan isticmaalaynaa, modelkiisu yahay 14-DK0XX. wuxuu ku leeyahay marka device nameka waa abc ayaan ka dhigay, processorku isticmaalayo waa md, ujeedaa amd waaye processorku isticmaalayo. ramku isticmaalayo ku jiro waxaa waaye 4GB waaye. so marka processorka isticmaalaysa oo cpu-ga ah, maskaxda computerka ah, inta ayaa ka ogaa kartaa. fiiri installed ramka aan lagu install gareeyo oo computerka ku jiro oo aan isticmaalayna homer gigabyte waaye, 4GB ayaan isticmaalaynaa.
kuwan kale waa device ID iska dhaaf. Haddii aan marka hore u soconno, waxaan u baahnaa marka maxaan isticmaalaynaa horta. Waxaan isticmaalaynaa wuxuu ku leeyahay marka specificationka Windows specificationka waxaa waaye editionka aan isticmaalno. Editionada waan soo qaadanay oo waxaan dhahnay Pro, Home, Starter, Enterprise oo kambaniyada waaweyn ay isticmaalaan iyo professionalkii. Marka ani hadda maxaan isticmaalaya marka seen ku ogaanaya editionka aan isticmaalaya. Editionka idin sheegaya waa kana. Editionka aan isticmaalaya waa kanaan hadda. Waa ka fiiri. Waxaa Windows 10 Home ayaan isticmaalaya. Adiga waxaa laga yaabaa inaad isticmaasho professional inaad isticmaasho oo Pro ay ku qoran tahay. Waxaa laga yaabaa Enterprise inuu computerkaaga yahay. Laakiin mostly dadka home userska oo dhan computerka ay isticmaalaan waa Home inta badan. Dadka guryaha ku isticmaala soo gata computerada waxay soo gataan computerada Home-ka ah. Laakiin markii ay kambaniyada waaweyn ay gadanayaan oo maaragtay business-ka ah waxay gataan professionalka iyo enterprise-ka. Because professionalka iyo enterprise-ka iyo more features ayay leeyihiin oo xagga security-ga, xagga maaragtay ileen waxay u baahan yihiin datadooda in protected lagu sameeyo oo maaragtay aysan hack lagu sameynin. Waxay leeyihiin marka more features oo security ahaantii iyo waxyaabo badan ayay leeyihiin oo maaragtay oo kan ka sarreeya. Marka wuu ka qaalisan yahay midka professionalka Home-ka. Home-ka waa iska raqiis. Dadka home userska ayaa loogu talagalay iyo ardayda iyo waxaas inay iska isticmaalaan. So marka inta ayaa ku ogaa kartaa. Marka xataa wuxuu kuu sheegaa date-ka lagu shubay oo maaragtay lagu install gareeyay ayuu kuu sheegaya. Marka intaasaan rabno inaan ogaano editionka taasaa noogu muhiimsaneyd. Waxaan kaloon ogaanay processorka computer magaciisa meesha haddaad rabtid inaad ogaato sidoo kale inta waa ka ogaa kartaa. Processorka computerkaaga uu isticmaalaya CPU-ga waa ogaa kartaa. RAM-ka waa ogaa kartaa. Editionka computerkaaga uu leeyahayna inta ayaa ka ogaa kartaa. Marka waxyaabo badan ayaan hadda fahanay oo aan qaadanay. Marka cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.